munaasabad lagu taageerayay laguna ducaynayay garyaqaan Ismaaciil Maxamed oo u taagan hanashada kursiga saddexaad ee aqalka hoose ee gobolka Ohio iyo Muniir Cabdulaahi oo ka sharaxan degmada sagaalaad ee xubinta xildhibaannimo ee gobolka Ohio ayaa lagu qabtay magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan, siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee laga soo doortay gobolka iyo degmada sida Senator Umar Faatax, xildhibaanad Hodan Xasan, xildhibaan Maxamuud Nuur, musharax عثمان أحمد مشرح سمكاب حسين قدوميها هيدا قريين مقالة منيابلس مدن عبد ورسمة إيه قدوميها دقمة اللحاد مقالة منيابلس مدن جمال عثمان. مناسبة دا أيضا كسوق قيب قلي وحاية المعمين سيدا وقونا أكسن لقو تاجيري كرود على الصوماليات وعقوب برتدل كمريكا وحنا تسالة السوقاتين هادي هذا الميسكا فردين وحنا نقولنا يسا وحنا لوغشرة يميسكا سيدا درتنا عي مهم تهاي قوبتا لوغو قرقرتميو in garyaqaana ku fadhiyaan. garyaqaan Ismaaciil Maxamed ayaa hadda dhinacayga taagan marka ay xafladda soo dilatay ayaa wax warbixin siiyay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed. Rankii aad iyo aad buu u fiican yahay runtii aad baa uga mahadcelinaya jaaliyadda reer Minnesota oo runtii waqti yar kooban ka soo baxay oo runtii dhaqaale badan noo ururiyay garab noo siiyay noo duceeyay marka aad iyo aad baa uga mahadcelinaya lama soo koobi karo. maxay idinku abuuraysaa haddaad tihiin reer Ohio? Ohio waxay muujinaysaa Soomaalida inay midaysan yihiin, Soomaalida gacmaha inay haystaan, Soomaalida runtii inay qof kasta oo soo istaaga oo dhalinyaro garab in la siiyo runtii oo mas'uuliyiin saaran aniga Muniirana runtii taageeradii buuxda haysanaa reer Ohio. degmada saddexaad aduu ka tartamaysid hadda guulaysid maxaad u ballan qaadaysaa? waxaan u ballan qaadayaa runtii shaqo wanaagsan, waxaan u ballan qaadayaa in aan lawyer ah haddana xildhibaan u noqonayo baahiyooyinkooda guryaha, shaqada, nolol maalmeedka, waxbarashada kulli runtii wuxuu soo hoosgalayaa gobolka Ohio. xildhibaan marka uu noqdana waa shaqada inaan miiska fariisto go'aamo u qaato danta ugu jirto. Hodan Xasan oo ka mid ah xildhibaanada gobolka Minnesota ayaa bogaastay jaaliyadda Soomaaliyeed iyo sida ay u garab istaageen garyaqaan Ismaaciil Maxamed iyo Muniir Cabdulaahi. meeshan waxaan isugu nimid inaan laba qof oo dhalinyaro ah oo siyaasadda raba inay ku soo biiraan gobolka Ohio aan soo dhaweyno, lacag u ururino, taageero aan tusno. caawa waxay uga duwan tahay horteeda aniga mar walba dhinaca dumarkan jiraaye gabar baa ku jirta tartankan, waa gabar iyo wiil dhalinyaro ah. waxay kale uga duwan tahay Ohio oo wali ilaa ay hadda Soomaali badan ay degan tahay aan ilaa ay hadda qof Soomaaliya soo dooranin ayay labadan qof waxay noqon doonaan labadii qof ee Soomaaliya ugu horeysay ee laga soo doorto. burhaan Ahmed waxa uu kala shaqeeyaa ololaha doorashada garyaqaan Ismaaciil Maxamed iyo Muniir Cabdulaahi wuxuuna jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota ku amaanay sida wanaagsan ee ay u garab istaageen dhalinyarada u tartamaya gobolka Ohio. arintan arin farxad leh waaye inaan imaano Minnesota waxaan u imaanay campaignki Muniir Ismaaciil oo laba yar dhalinyaro ah oo muhiim u ah dadka Soomaalida oo hay degan. عثمان أحمد waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta gobolka Minnesota isla markaasna waxa uu ka sharaxan yahay degmada 62 ah ee gobolka Minnesota wuxuuna ka mid ahaa dadkii caawa lagu martiqaaday xafladda lagu soo dhaweynayo labada dhalinyarada ah ee ka tartamaya gobolka Ohio. Ismaan soo dhawow. waa mahadsantahay, thank you. dadka waxaan leeyahay horta caawa sharaf ay noo ahayd, dhalinyaradana waxaan leeyahay hambalyo. waa aad iyo aad baan u faraxsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed inay soo ordaan oo soo taagaan. marka dadka dhageysanaya reer Ohio waxaan leeyahay dhalinyaradaas u codeeya, taageera. runtii horumarka qof dhalinyaro oo Soomaaliya waa horumarka bulshadeena. marka waxaan leenahay taageera. anigana sidoo kale hadda musharaxa waxaan ka ahaa meesha aan joogno waa Minnesota. marka xaafadda 62A qofkii degan oo South Minneapolis ah waxaan leeyahay codeeya ama primary aniga aan leeyahay waa August 9 marka igu taageeraan dhahaya marka waa maasantihiin. ganacsada Mursal Sheekhdon waxa uu ka mid ahaa dadkii soo qaban qaabiyay xafladan waxaana uu fariin u diray bulshada Soomaaliyeed ee ku nool guud ahaan dalka Mareykanka gaar ahaan gobolka Ohio. waxaan fariintan dirayna waxay tahay kow waa in la codeeyaa, waa in waliba campaign baa lagu jira, campaignkuna dhaqaal u baahan yahay, dhaqaalahana waa in lagu tabaruca. also fariinta kale aan diray waxaan u baahanahay dadka Columbus jooga Ohio inay volunteer sameeyaan. volunteer badan baa looga baahan yahay. aan garab galno waxa ka haray hal isbuuc baa ka haray insha Allah taala aan ku hubsano sida ugu dhaqsiyaha badan kursiga. Taliyada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota ayaa aan u kala harin garyaqaan Ismaaciil iyo Muniir Cabdulaahi waxaana arintaasi soo dhaweeyay Xasan Yaasiin oo ka mid ahaa dadkii soo qaban qaabiyay. ma uusan tartameen macnaha maxaan ku raacdaa haddii Ismaaciil og yahay inaan dadka reer Columbus aysan dad nool ahayn marka waa hubaa waan rajeynayaa insha Allah horena inuu garab istaageen haddana inay garab istaagi doonaan. waalidiinta Ismaaciil Maxamed iyo Muniir Cabdulaahi ayaa sidoo kale bulshada Soomaaliyeed ku amaanay dadaalka ay u muujiyeen dhalaan ku koray labada dhaqan dhexdooda iyagoo sheegay inaysan mar raba ilaawin wanaagga iyo waxtarka jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota waxaana sheegeen inay cashar ka qaadan doonaan ee ku aadan arrimaha doorashada. Cabdi Xakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka.